دولة هانا الإسلامي يقدم لي رجع عوسى قرشان الإسلامي كتشوي قرشي ومطع وح أنقارو حسيا مقالة عاصمة هرقيسة ويكونوا لي مليون يبني كله وعاصمة القرن وح بيها عباب بقولك والسلطة سجال كل يوم يومك أيام كسر أيام ما تيجي ماذا مشروع وحنا كلية كلية سجال كلية في سديتك أيام دولة الشيوخ ينومون ده لبيت الدوار كير الدولة الإيطالية أيام غوريسي واتقرأ كتاب بمشهد كل نوعين حلقة أفريقيا سديتك وحلو قياس السديت تكون إن يكون نوعين الكيسة بقولك بسيط البعض مشروع عاصم حقه وحن حكومة الشمال الآن هي ملدي ملحوينا هيكسي ملحوينا هي ملدي حسب الكلمية أي المجالات المشهورة كله اللي بيعيشوا بلشة شمالنا مير بلشة كله وماشى وكبر وأنا عاصمة ديني وشوي باروري وحمات إلهي الهدي نوع كلام المشروع عاصمة بيقولوه لحد مليون $1 مشروع كلام ودرود نوع ده درود إسكالات كان صوتنا درود حتى الشغل كان وأنا كشهاجة آمنين وأنا كوكا العلم إسكما يمطر وحبا وأبوكم هذا كينا أمام دولة نجاح عوي مشروعها ودمنا اللي يوم دولة إنجليزيا شرمة سيجارة شركة كوكاكولا لما تود وما هذا كينا وحاط صوب الدولة دوام بها يهل الدولة لا تكون مثل بيوت صدق عيلو دوام هرهاده إنه حتى أنا كقولي وحكى يصدق لا عيلو كليا بقول يشكي سديت تكون ومواطنين بكعبية مشروع عشوق نغنية مشروع قصامين تبطنا بتوع شمال لانكا كبسومي وهو كمية وحكمية ووين إلا طابقروا حكومة مدحوين السينايو هي حكومة القومية وحكمل عفمات شو بدو بالا نسي وقع عفمات بالا نسي عسبتها لدوالة الدقلية شغالة بدو بالا قريب سيقالوا عن عسبتها عسبتها عاصمة ومانت لنقول كلية أدية فربضان أو عسبتها كوين كاركينا أو وحوال أولا غلق وستو مانت الولا يما هكا أو المركي هوري حوق أهايين عسبتها لدقار كالولي وهذا أنا وضعنا نصيب الله إنه عسبتها عسب محمد شيخ وكمل دور كوهية oo dhisay lana hirgeliyay oo maanta ilaa wadnay laga sameeyay qalliinada wadnaha ee lagu caruurayna loo qaadi jiray dhalinyarada qaarada yuu loo qaadi jiray waxbarashadeena wax badan bay iska beddelay ardaydii baa badatay macallimiin badan baa noo qoray dugsiyadii baa noo kordhinay dugsiyada sidoo kale 40 iskuul baa muddada aan dhisoo gelin gaar ahaan gobolka Sool iyo Sanaag oo aad u hooseeyay ayaanu kor soo qaadnay adeegyada bulshada caafimaadka waxbarashada biyaha meelaha aan xoog adeegyada loo gaarsiiyo horumarka ayay ka mid tahay waxaa ka mid ah arrimaha muddada la xaqiijiyay dhismaha ciidamada qaranka tayadooda tiradooda qalabkooda darajadooda xeerarkooda waxaas oo dhan maanta ciidan qaran oo suurageliyay amniga iyo nabadgelyada ummaddan inay noqoto mid taam waxaa ka mid ah waxyaalaha aan xaqiijinay muddada dhismaha dowladnimada kobcinta aqoonta shaqaalaha dowladda oo ah waxaa shaqaalada dowladda capacity building tacab badan baa la geliyay waxaa laga yaabaa inaan dadku waxqabadku oo wax muuqda iyo waxaan muuqda daaraha waaweyn ee kuwa ingiriiska bedelay ee wasaaradaha cusub ee labaatanka ku dhow bulshada way aragtaa laakiin lama arki karo aqoonta kor loo qaaday waxaa ka mid ah aqoonta maanta abarateera iyo ku duwan baa ka mid ah waa aqoon la taaban karo oo birta mujtamaca saamayn ku leh togan waxaa ka mid ah arrimaha isbeddelada waxaa ka mid ah ciidamada amniga Soomaaliland maanta qaybteeda baadhistu waxay samayn karaan markii dunuubtu dhacdo dunida dunuubtu maanta waxay marayaan si technology-ga lagu sameeyo waa qaab aad u halisa waxay samayn karaan nooc walba oo fingerprint inay qaadaan nooc walba dembi kasta oo dhacay ciddii geysatay hadday baxsato farihiisa ayaa la helaya waxaa la wadaa isaguna oo hadda aynu database system ballaadhan oo lagu kaydiyo ayaa hirgashay
fingerprintka muwaadiniinta gaar ahaan cid kastoo dembi gasha waxa kaloo iyadana aynu wadnaa barnaamijka DNA-ga isagu waa isbeddelka ku yimi qaybta baadhistoo keliya waxaa ka mida oo kale oo aan runtii xusi lahaa waxyaalihii muddada inoo qabsoomay waxaa ka mid ah xeerar iyo shuruuc badan ayaa la arimay oo qaran ka faa'iido weyn dowladnimada qayb weyn bay ka tahay shuruucda iyo xeerarku waxaa la arimay shuruucdii ugu badnayd muddadii Somaliland jirtay ayaanu samayn golaha wakiilada waxaanu ku hambalyeynanaa iyo golaha guudka shuruuc badan bay muddada hirgeliyeen oo ka badan muddooyinkii hore muxuu ahaayey shuruucda meel martay waxaa ka mid ah waxaanu xoojinay nabadaynta dib u heshiisiinta bulshada gaar ahaan gobollada bari xoog baanu saaray dhaqaalo badan baanu ku bixinay weli gacantaanu ku haynaa taas waxay suuragelisay qarankeenu uu midnimadiisu soo xoogaysato waxay suuragelisay diiwaangelintii dalka ka dhaxday codbixiyaashu in gobolka Sool haddaan tusaale usoo qaato 157 goobood in laga diiwaangeliyo dad ay iska diiwaangeliyaan si nabada oon cufti lahayn oo dadku rabitaankiisa sarka ku haya wax iska yimi maaha waa wax nabad ku yimi isfaham dib u heshiisiin iyo siyaasad qoto dheer waa ku ogaanaynaa bulshada deegaanada fahamka iyo siyaasaddii ay nala jireen waxaa ka mid ah arrimaha waaweyn ee bulshada Somaliland ka cabanaysay la tiicaysay ee xanuunada hayay ka mid ah garsoor xumo iyo cadaalad xumo dib haboon weyn baan garsoorka ku sameeyay bulshada Somaliland maanta waa ka markhaati laa mushkil maxkamadu inuu yaraaday in garsoorkii hagaagay waa guul weyn oo qaran ahaan ay gaaray marka la isku soo duubo waxaan leedahay waxa aanu qabanay khudbad kooban kuma koobi karno waxaanu leedahay waa wax muuqda qarankan isbeddel iyo horumarka ku yimi waa wax muuqda waxaan ku soo ururinayaa bulshada waxaanu aaminsanahay in bulshada Somaliland mahadisay hogaamintii madaxweyne Silaayo iyo hirooyinkii xisbiga kulmiye waxaanu leedahay mar labaad waxaanu soo bandhigi doonaa halkaa waxaanu ka qaadi doono oo maanta khibrad badan aanu helay talo badanna iyo xirfad badanna ay nagu duugan tahay aad iyo aad baa mahadsantihiin. Assalaamu calaykum.